yaroo degdega waxaan rabaa inaan idiin sheego in muuqaalooyinka badan aan soo wado guud mar inaan idinkugu sameeyo si aa ula socotaan jadwalkayga hadduu ilaah yiraahdo. muuqaaladeyda soo socdo waxaan rabaa inaan kaga hadlo daawada ama productiga hadda la isticmaalo ee Soomaalida inta badan hadda ku mashquulsan yihiin ee loo yaqaano Herbalife-ka. ayadu ganacsi ahaanteedu waa sidee su'aal ayaan iska weydiin doonaa. caafimaadka laga helay la sheegay ayaduna waa sidee kaasna waa ka hadli doonaa. waxaan kaloo ka hadli doonaa ganacsiga loo yaqaano forex oo hadda bilowday dad rag dhalinyaro aan aqaano ay ku guda jiraan. asaguna forex tradingka muxuu yahay, ma laga faa'iidi karaa, shareecada islaamkusa maxay ka qabtaa, asaguna su'aalooyin ayaa iska weydiin doonaa. waxaan kaloo rabaa inaan kusoo qaadano mawduucyadeena soo socda hadduu ilaah yiraahdo waxaa loo yaqaano dropshippingka. isagana waa nooc ka mid ah ganacsiyada ee sida adigoo aanan alaab haynin inaad alaabta iibiso, waxaadan haynin ma iibin kartaa. su-aashaas ayaa iyaduna ka taagan una baahan in si taxadar leh looga jawaabo. waxaan kaloo kusoo qaadan doonaa YouTube-ka sidaa aan naqaano wuxuu leeyahay qaybooyin kale qaabka dadka usoo upload gareeyaan ama video usoo dhigaan. markaa fiiriso wuxuu leeyahay qaybo badan, qaybta wararka, qaybta gaminka, waxyaabahaas oo dhan. waxaa kaloo jiro oo aadna u ballaaran oo runtiina aad u ballaaran viewskooduna uu badan yahay, lacag badanna laga sameeyaa, waa midda muuqaalada ku wajahan caruurta. sida halkaa ka arkaysa muuqaalada caruurta ku wajahan ayaa ugu badan. haddaba waxaan rabaa marka waxaan taas idinkugu sheegaya maxay tahay, waxaan idinkugu sheegaa waxaan rabaa inaan bilaabo course ee aad ku baran kartid qaabka loo sameeyo muuqaaladan. hadda kan halkaa idinkaga muuqdo oo kale qaabka loo sameeyey, softwarekee la adeegsaday, softwarekaas aan rabaa inaan ku baro ood adeegsato oo adiguna aad ka howlgasho hadduu ilaah yiraahdo. muuqaaladeeda soo socdo ayaa intaasoo dhan ku arki doonaa hadduu ilaah yiraahdo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.